السلام عليكم. maanta waxaan joognaa magaalada Wajaale. waxaan rabnaa safar dheer oo muddo qaadanayo inaan galno. marka tigidhkan jartay waxaan ku qoranahay baskaas Haruuda ama cagaarka ah. waxaa iska leh kambaniga la yiraahdo Sahal. marka waxaan rabaa inaan Hargeysa tago kadib aan ka sii tago aan sii socdo wadooyin badan oo dheerna aan hor u sii maro. marka waxaan jeclahay inaan wada socno. safarkayga wuxuu ka bilaaban doonaa videogayga halkaan. hadda waxaan joognaa magaalada la yiraahdo Gabiley. waxaan ku soo tukanay masaajidka. baabuurkeena waa jaalaha xoolaha kadib waan tagaynaa. hadda waxaan joognaa sida hore kugu sheegay magaalada Gabiley. marka bacda salaad toosana baxayna ilaa magaaladii Hargeysa. aan wada socono. Maya dah hati. Ya. Wilayah aku jaga ya. hadda waxaan joognaa dukaan iyo maqaaxi laga cunteeyo. wuxuu ku yaalaa faafka hore laga soo galay magaalada Gabiley markii laga yimaado xagga Wajaale. dadka iskale waxaad moodaa dad aad u aqli badan oo soo geentooda aad u wanaagsan tahay. maxaa yeelay gaari walba oo ka yimaada xaggaas oo safar ku jiro wuxuu soo maraa halkan. sharaabkay ka iibsadaan wayna ka qadeeyaan hadba xilliga ay yimaadaan. dadka habeenkii yimaada way ka cashayaan, dadka duurkii yimaada way ka qadeeyaan. marka anaga waxaan noqonay dadka duurkii yimaado waxaan sii yeelana markaan ka qadeyno. aan hore u sii socono. ku soo dhawaada magaalada Hargeysa, hoyga suugaanta Soomaaliyeed. waxaan ku soo aadnay xilli gaabalnimo. marka waxaan ku qasbanay habeenkaasina magaalada ku hoyano. anigana fursad ay ahayd. okay, hadda waxaan joognaa waa nimid magaalada Hargeysa. halkaan joognaa بريتو لدولا يهادو مركزي سوودونا سبكا أوروسي ودونا waxaan joognaa hotelka qolka mida deganahay. waxaan jeclaa bal xogaa magaalada inaan soo yarayn dhigno wax badan ka soo gaaro intaan dhex maraya magaalada Hargeysa. waxyaabaha ugu yaabka badnaa oo arka waxay ahayd dhismooyin aad u balbalaaran, aad u waaweyn, mararka qaar indhahaada ka qaadaynin sida loo diyaariyay iyo ganacsiga oo dhex socda. dhinac walbaan ka soo maray, dhinac walbaan soo eegay.
xagga nolosha bini'aadamka waxaad u moodaa xoogaa horumar weyn in laga samaynayo inkastoo mararka qaar ay jirto maciishada inay yara sarayso taana waxay kala sameeyeen aan jeclahay geyga Soomaaliyeed runtii ganacsiga magaalada ka socda waa ganacsi xoog leh awoodna leh marka waqtigan ku soo qaatay oo ku soo damaashaaday oo ku soo baashaalay abaarna ku jira magaalada aad iyo aad ayay ganacsi runtii muddo kadibna ku soo laabtay si aan u yeesho korkaan aan soo kornay si aan dusha kor uga aragno magaalada runtii magaaladan dhinac walba markaad ka eegto agaar walba aad ka fiiriso markaad saaran tahay dusha kore waxaad dareemay magaaladan inay tahay magaalo si xawliya ku korayso naftaadana waxay leedahay nimaad ka mid noqotaa dadkan oo sidan magaalada u korsiinayo horumarkeeda iyo wanaageedana wado aniguna kadib waxaan sib u yeeshay mar labaad inaan dib ugu soo laabto aan indhahayga ku arko isbeddelka ballaaran ee magaaladan la timid runtii waa ajaa'ib cid aaminaysa malaha السلام عليكم أنا مقالة وان كسر تقني مقالة هرقيسة هذا واحد جونا ميل قياستي 60 كيلومتر وجرته مقالة هرقيسة ماشي واحد لو مقعبة أبدان إنه هو ميل مركي ضد كسر الريدة كوها كذا صلاة يكون كذا هوايرنا يكون استان هذا هو نسوي سيستي معروضة مسجد كائن أنقلنا سهر وسوق بدونه صلاة عصر كذي من سفر كنا روسي ولا مقال قاعد هذه الموت تموت هذيك بلا مقال قاعد انت يا الله يجيبك شرك كسر دوالة مقالة الشيخ مقالة ومقالة ير لكن وحو والبو حق بالعالم كأساسي كما نشر يقول لما يسترنتها تلكومينيكيشن كي يكوي هلو باورتي يالا ماشي سوحة سلاة مقالة وين بيها هذا ودقمة ير markii loo eego magaalooyinka sidaas oo tahay kaabayaasha dhaqaalaheeda oo dhan waxay mudaa inay tahay mid dhameystiran ilaa hadda waxaan ku dhex soconaa degmada Sheekh waa ajaayib aniga laftirkayga waa u qaadan waay mara waxaan ku qaldo maxdaasna aniyo kaalmiyo ama joogtaaba maxay leedahay burco ama joogtaa isna marka arka Sheekh sida u dhisan tahay leerka ka daaray sida u habaysan tahay darawalka inaniyo mabruucan joognaa magaas ugu yirmay oo sheeqan joognaa degmada sheeqan joognaa marka sheeq baday sidaan tahay maxaad ka filay burco marka adiga un qiyaas safarkana horusi waday
saacadana waa 1:00 barxamiinimo. subax wanaagsan. insaaka waxaan joognaa magaalo la yiraahdo Carabsiyo. xalay saqdi dhaxan soo galnay. xalay markaa magaaladaana seexnay. hadda waan quraacnay, waxaan rabnaa inaan hore u sii socono. nakaya Carabsiyo waxaa laga cunaa rootiga iyo koobka shaaha iyo yaanyo, basal iyo wax yar. marka wixii halkan ka dambeeyo wadadii laamiga waa ka degnay, waxaan raacnay wada raf ah maxaa yeelay waxaan rabnaa inaan marno xagga magaalada Buuhoodle. marka sidaa ognahay Buuhoodle laami ma maro, marka waxaa u baxo wada jaay ayaa aado. marka dhinacaas Buuhoodle aadnay waxaan badan oo amiino ilaahay ku amaano ardaydaadina yeelo ardaydaadina geeye salaamullah calayka ya mustafa salaame calayka ya rasuuli العيران تسورو سبياكين سلامو ينجمو منكو سلام الله عليكم ورحمة الله عليك سلام الله عليك يا مصطفى سلامي عليك يا رسولي. waxaan ku soo aadanay tuulo yar markaan wadada rafkaan soo raacnay. waxaan iskaga joognaa shaaxan ka cabnay sidaan loo soo dhaweeyay. laakiin tuulada magac meesha hadda taagan lahayd qiyaas dadow. meeshaan waa tuul maxay leedahay waa baraak. sidee biyaha looga darsanaa marka ayahay tuulada idin sheegay. maxaa lagu daraa wixii lagu darayaa ku soo dhawaada tuulada jacayl. waa baraak dadka tuulada. halkani waa magaalada Buuhoodle. runtii waa markii ugu horreysay noloshayda aan galo ama aan arko ama aan dhex socdo, laakiin sidaan kama filayn. Buuhoodle caadi maaha. waan kugu celinaa Buuhoodle caadi maaha. I like it. waa magaalo jawi deganaa. meeshaas waxaa ku qoran xasuuqii Kalshaale. gaari waxaa saaran BM yahan jeclahay mase waa tangi waayaan filaa. xaggan waa hoteelka magaalada ugu shidan Rice Hotel Restaurant yaa la yiraahdaa. waa kan orodyahankii weynaay Cabdi Bile Cali. marka magaalada taariikh gooniya leedahay filaa. waa tan Buuhoodle.
welcome to Buuhoodle. waxaan jeclaan doonaa videoga inuu sii socon doono qayb labaadna uu lahaan doono. inta hore waxaad leeyahay maalin wanaagsan nooli kulantee.